Soomaaliya waa laga soo haajiray 20 sano la soo dhaafay waxaana la yimid qurbaha si lamid ah sida Soomaaliya laga soo tagay iyo sidoo kale laga soo tagay wax kasta oo Soomaaliya qaas u ahayd gaar ahaan cuntada dhaqamada dharka la xirto iyo waliba cimilada waxyaabaha koowaad ee dadku tabaan marka ay qurbaha imaadaan ayaa waxa kamid ah cuntooyinka Soomaalida sida canjeerada cambuulada falfaliirka garoomasago subagii sixinta iyo codcodka ahaa sabuulkii la xaquuqan jiray hilibka saloolka ahaa caanihii dhayda ama garoorka ahaa iyo dabcan muufada oo ah shayga ugu xiisaha badan oo aan maanta warbixintani ku eegayno muufatinaarku waa mid kamid ah raashinka u gaarka ah Soomaalida waxaana laga sameeyaa galeyda waana galey la shiiday ama la diiqay kadibna la cajiimay isla markaana tinaar lagu dubay waxaase dhadhanka dhabta u yeelaya ayaa ah waxyaabaha lagu dardaro goosaartuna waa maraq iyo suugo si wanaagsan loo diyaariyay mooska iyo saliid macsaradu waa labada shay ee kugu soo dhacaya marka aad cunista bilowdo tinaarkani iyo birta lagu soo qabanayo marka ay muufada bilaabato waa mid kamid ah warshadaha ay Soomaalida ku faanto waxaana dubta muufadani habla Soomaaliyeed oo takhasus gooni ah u leh dubista muufada waxaase la sheegay in qof kasta uu sadubi karin muufada una u adkeysan karin kulaylka halkaasi ka baxaya marka barashadada ilaa inta leeg dadku qaata marka qaabka say dadku kala maskax fududeeyeen waay walaalkan aad qofta aan fahmin xataa muu soo dhawaad karto waligeed arag waa ka carreysa ma rajo kama qabteen rajo ay guri saxda okay baadii lagu siiyo ma sameey kartid wadaana aan baranin barashadeena waa dhibadan tahay because maxay naga dumarka dhammo sameeyana soo ma garan waa gartay aad iyo aad u dhibadan tahay maxay naga wax ku badan aan ka soo shaqeynayna ilaa Soomaaliya ku shaqeynayna ilaa adiga dhowr ilaa 10 sano kulaad balse Soomaalida ayaa marnaba ka tagin hidaha iyo dhaqanka u gaarka ah waxaana arki kartaa in halkan lagu soo bandhigay laguna soo arooriyay inta badan waxyaabaha ay Soomaalida ku caan baxday waxaana lagu soo bandhigay xaflad hidaha iyo dhaqanka oo Cape Town ka dhacday oo ay ka soo qayb galeen dhammaan wadamada qaaradda Afrika محمد يغ مصنور داق درجو يونيفرسال تي في سود افريكا